qalabkan maanta lagu wareejiyay waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa isugu jira kaamarooyin casri ah oo gaaraya ilaa 6 xabo iyo matoor dabdhaliyo oo aad u weyn kaas oo ay ku wareejiyeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. agaasimaha waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo qalabkan ka guddoomay mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda warfaafinta ayaa u mahadceliyay madaxda wasaaradda warfaafinta dadaalada ay arrintan u galeen asagoo dhanka kale sheegay in qalabkan baahi weyn ay u qabtay waaxda warbaahinta taas oo uu xusay in hadda qalabkani wax weyn ka bedeli karo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxda wasaaradda dadaalka ay samaysay iyo cidii runtii ay la kaashatayba in ay hesho qalabkan oo ah runtii qalab tayadiisu ay qalab aad ay u sareysan tahay. kaamirooyinkan runtii waa kaamirooyinka ugu dambeeya ee maanta laga isticmaalo dunida laga isticmaalo. waxa runtii agaasimo baahideenu ay tahay wali mid intan ka sii badan. waxaan rajaynaynaa in gobolada xafiisyada ku leenahay oo dalka intiisa badan xafiisyadana ay ka shaqeeyaan iyagana ay wasaaraddu u istaagi doonto sidii uu u gaari lahaa qalab kale maadaama ay baahi weyn oo runtii la mid ah tan xarunta ka jirta ay ka jirto. dadka Soomaaliyeedna dhamaantood ay nagu soo badanayso culayska ay rabaan inay helaan warbaahin ay isticmaalaan si ay xogtooda isku gaarto dareenka uu uga yimaado meelaha ay dadku joogaan ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar oo u soo gaaro xarunta dhexe ee dalka. marka waxaan rajaynaynaa in qalabayntan ay noqoto mid ku fida gobolada haddii ahaan lahayd in idaacadihii gobolada qaybo badan aan ka shaqeynin la kiciyo oo dadka la gaarsiiyo iyo in SNTV oo gobol walba xafiisyada hadda uu ku leeyahay ay noqdaan xafiisyo qalabaysan. sidaas oo kale dalka dibadiisa oo Soomaali badan ay jirto xafiisyo badan aan ku leenahay iyadana waxaan rajaynaynaa in sidaas oo kale la qalabeeyo maadaama maanta wax ku dhow 20% dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jiraan inay awood u helaan iyaguna in meel kasta ay ka heli karaan SNTV iyo Radio Muqdisho inkastoo hadda in badan aan cover gareyno laakiin baahideenu waa mid wali taagan. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdirasaaq Cali Yuusuf oo qalabkan ku wareejiyay mas'uuliyiinta waaxda warbaahinta ayaa ka warbixiyay qalabkan maanta wasaaradda ay ku wareejisay waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya asagoo dhanka kale sheegay in qalabkan casriga uu yahay mid baahi weyn ay u qabtay waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. waxaan maanta farxad noo ah inaad maaragtay warbaahinta qaranka gaar ahaan mas'uuliyiinta agaasimaha warbaahinta Cadaala iyo agaasimaha Radio Muqdisho in wasaaraddu ay ku wareejiso kaamirooyin 6 xabo ah oo runtii aad muhiim u ah oo ah nooca hadda ugu casrisan ee laga isticmaalo adduunka oo dhan. waan rajaynaa runtii inay wax weyn ka bedesho warbaahinta qaranka gaar ahaan SNTV. sidoo kale waxaan rabnaa maanta inaan ku wareejino matoor cusub oo 200 kiifiya oo dabdhaliyo ah. waan rajaynaa guud ahaan inuu daboolo baahida koronto ee wasaaradda SNTV iyo Radio Muqdisho. muhiimadda aan ka leenahay waxa weeye isku tashi wasaaraddu ay isku tashanayso inay maaragtay dib u habayso waxyaheedii kala duwanaa. marka tani waxay dhiirigelin u noqonaysaa waxyaha kale wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ku howlanay sidii ay u tayeyn lahayd warbaahinta qaranka iyadoona dhawaan la filayo mashruuc lagu ballaarinayo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kaas oo ay fulinayso dowladda Finland. Ali Cabdiraxmaan Aadan, SNTV, Muqdisho.